ummad ya khayr liga wada degteeyo eebbe ku abuuray ummad ya khayr liga wada degteeyo eebbe ku abuuray abti iyo ayeeyo adeer eedo iyo ayo ehel iyo xigalba tihiin oodna wada yaale ummad ya khayr liga wada degteeyo eebbe ku abuuray ummad ya khayr liga wada degteeyo eebbe ku abuuray abti iyo ayeeyo adeer eedo iyo ayo ehel iyo xigalba tihiin oodna wada yaale arrima hadanteena haddaan laysla wada eegin oo aan uliya diir la noqon waa aan banaynaaye arrima hadanteena haddaan laysla wada eegin oo aan uliya diir la noqon waa aan banaynaaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم جفوي معناها أنو جيسنين dadka kale ee muslimiinta ah caaman markii loo hadlayo laba arrimood ayaa runtii kalifay in kulanka noocana iyo wada tashiga noocana uu noqdo mid qabsooma amaba dhaca amaba kasoo go'a fikir iyo afkaar kala gedisan oo dad ayagu halkan qaarna goobjoog yihiin qaarna aysan u helin fursad inay kasoo qayb galaan marka hore waxaan ognahay wadankii aan ka nimid in arrimo aad iyo aad u murugo badan oo ku saabsan xagga siyaasadda iyo xagga dhaqankuba ay ka dhaceen sanadihii u dambeeyay isbedelo aan horey u aqoonin bulshada Soomaaliyeed ayaa ku soo kordhay marka aan ka hadlayno marka reerkan amaba beelaha tireed ku absirsada magacaasi waxa ay noqdeen ayagu kuwo runtii dhibaatooyin aad iyo aad u kala gedisan ay kusoo macnaha ku dhacday amaba ay saameysay isbedelka siyaasadeed ee wadankii ka jira dhibaatooyinkaasi waxa ay u kala baxaan dhowr markii aan xagga siyaasadda ka hadlayo waad ogtihiin oo wadankii wixii ka dambeeyay burburkii 90kii iyo intii ka horeysay ka dhacay wadankii waxa ay noqotay markaa in dadkii ay noqdaan dad ayagu aan ehel soo hayno markaa qolo walbaaba ay meeshii ay deegaan ahaan kasoo jeeday ay tagto ayagoo markaa qaarna ay aayahoodii u tashadeen oo ay masaalixadoodii guud iyo danahoodii ay markaa fushadeen ilaahayna la garab galay qaarna ay noqdeen kuwo ilaa iyo hadda aan ayagu helin xasilooni iyo nabad iyo is-afgarad intaba markaan ka hadlayno marka reerkan waxa uu ahaa reer dega amaba deegaan ahaan markii la leeyahay geeskan Afrika oo dhan marka laga hadlayo wadamada jaarka nala ay wada deganeed taa marka waxay noqotay in ay noqdaan kuwo ku milma منطقة iyo dawladaha kala duwan isbedelkaasi marka wuxuu saameyn weyn ku sii yeeshay marka laga hadlo reerka dirka la yiraahdo qaybta deegaan ahaan ayuu ka soo jeeda koonfurta
markaasaa leeyahay waxaa weeye koonfurta Soomaaliya waa meesha aan ilaahay hadda wax nidaam ah iyo deganaansho iyo dowladda cadaaladda midna aysan ka jirin runtii oo aan wada ogsoonahay. dhibaatadaasi waxa ay markii dambe u xubsiibatay in la yiraahdo nidaam 4.5 amaba 4.5 in loo sameeyay dadyoogii koonfurta deegaan ahaan deganaa Soomaalida ahaa oo la yiri wax ku qaybsada qaab qabiila. markay taa dhacday waxa ay noqotay markaa in meelihii qaar ay noqdaan kuwo deegaan ahaan deegaankoodii ayuu isugu geeyay muruq iyo xoog wixii ay lahaayeen oo markaa ay noqdeen kuwo ayagu siyaasadii horbooda mar walba oo ehel u noqda reerka marka halkan fadhiyana wuxuu ka noqday siyaasadaas iyada marti oo kale. marka laga hadlayo marka sababta dadku waxay isweydiiyaan marka laga hadlayo tira marka la yiraahdo dad yar ma ahan oo waa dad deegaan ahaan deegaan magaalo walba oo ku taala koonfurta Soomaaliya. laakiin haddana dulmigaasi xagga awood qaybsiga ah waxa ay noqdeen kuwo aan waxba saasa ayagu saameyn weyn aan ku yeelin amaba aan ka helin. waxaa loo aanayaa marka u horeysa inay tahay siyaasiyiintii magacaasi u waday reerka oo ayagoo aan siyaasadoodu ahayn mid midaysan oo markaasi u dhigay ayagu markaasi aan helin siyaasiyiintaasi inay codkoodii mideyntii ka sokoona ay markaa u hadlaan xuquuqdii dadkii ay matalayeen oo ayagu kasoo jeeday deegaankaasi koonfurta. 4.5 kaas marka dhibaato weyn ayuu runtii u keenay dadkan dirka la yiraahdo ee degan koonfurta Soomaaliya. tan kale oo iyaduna noqotay dhibka weyn waxa weeye nidaam loo bixiyay federaal oo isaguna la yiri waa in federalism iyo wax aysan dadku garanayn wax ay ku qaybsadaan. taa iyaduna waxay keentay in isriix uu yimaado iyo degmo iyo tuulo iyo gobol wax la kala samaysto. deegaankii marka ay beeshan deganeedna la hunguriyeeyo in laga saaro oo barakicin iyo dagaal iyo xasuuq iyo wax walba la isugu geeyay oo aanu markhaati ka ahayn oo kulankii hadda kan ka horreeyay halkan wixii aan u fadhinay baroordiiq bay ahayd iyo taxsiyeyn dad walaalaah oo runtii loo geystay wax aan dhaqanka Soomaaliya hore uga dhicin oo deegaankii iyo guryaha ay deganaayeen la gubay ayagii la laayay la barakiciyay. runtiina ilaa iyo maanta sidaan la socono wax xala oo macnaha loo sameeyay ama wax ayagii oo midaysan inta ku soo celiyay guryahoodii dawlad ha noqoto ama shacab kale oo Soomaaliyeed midna ma hayno oo taana waxa weeye mid runtii iyadana jirta. marka inta laga hadlo arrimo badan oo ayaguna waxa soo baxay saameyn xoog la ku yeeshay xagga dhaqanka oo markaan dhaqanka ka hadlayno dadku dad Soomaaliyeed bay ahaayeen beeluhuna waa isiqaaneen. beeshan waxay noqotay marka beel iyadii haddana lagu dulmiyo magacii ahaa dirka oo la yiraahdo mid wax u ah ama waxaad isu tihiin midna ma jirto oo qol walbaaba marka ay noqoto in xayndaab gaar ay gasho. taa marka iyaduna waxa weeye arrin ku cusub oo ugu ku ah dhaqanka Soomaaliyeed in qof dhalashadiisii qof kale oo aan isagu markaa ku aftirsan inuu ka arrimiyo ama isagu xukmo isagoo markaa daliilo uga dhiganaya wax uusan u haynin wax cadeymo ah oo ah inaydan waxba isu ahayn ree hebel waxba uma ahan halkaasuu degaa adiguna halkaasaa degtaa isma taqaanaan sidee wax isugu noqoteen. taa dhaqanku marka waa mid kasii khatar badan tii siyaasadda oo aan ka hadlay. sababtuna wax kale ma ahan waxa weeye waad garan kartaan qof walbaaba suulinta xagga dhaqanka marka lagu sameeyo qofka ama identity-giisa saameynta ay ku yeelan karto ma aha runtii mid fudud. waa mid asalkiisii iyo jiritaankiisa mustaqbalka isaga iyo carruurtiisa iyo deegaankiisiba lagu qaadan karo ama lagu yeelan karo. taa marka xagga dhaqanka ah waxa weeye mid iyo tan siyaasadduba kaliftay maanta inaan labada arrimood anagoo aragnay ay qasab noqoto
in macnaha la sameeyo xal kale oo lagu badbaadin karo dadkii walaalaha ahaa oo ehelkan isu ahaa. Anoon marka hadalka kusii fogaanayn, labadaas sababood dartood ayaa dad isu xilqaameen inay u kacaan aragtidan oo ay bal waddankan aan degannahay oo Finland ay ka sameeyaan kulamo ay iyagii ku tashanayaan, iskula hadlayaan, kadibna ay markaa ayahooda uga tashadaan mustaqbalka kan dhow iyo kan fogba. Waxaa soo baxday marka in aanu helnay hoggaankaasi runtii waxaa weeye hoggaan dadka adigu beelahan dirka ah oo waddanka Finland degan kulligood ma aha laakiin qayb ka mid ah ay ayagu sameeyeen runtiina dadaal dheer kadib iyo hawl fara badan aanu ku guuleysanay in aanu magacawno hoggaan markaa isagu matala haddii ay noqon lahayd arrimaha xagga dhaqanka ah oo ugu muhiimsan iyo haddii ay noqon lahayd xagga kale iskaashiga iyo wax wada qaybsiga iyo masaalixada guud oo dadku hadduusan macnaha hoggaan lahayn waxaad moodaysaa in uu noqonayo adigu awrar aan xarig iyo hoggaan midna lahayn meesha uu mari karo iyo meelaha uu hawdkaas iska jibaaxaya sida aan macnaha fahansanahay. Marka taasi waxay maanta noo tahay annaga guul weyn inaan halkan u fadhino. Odayaashii markaasi aan u magacawnay inay hoggaan noo noqdaanna anoo uga mahad celinaya codsigaasi ay aqbaleen, runtiina ay u dhabar adeegeen oo nagala soo qaybgelayeen kulamadii dadka dhalinyarada iyo aqoon-yahanada isku xilsaaray ayagu inay arrinkaasi ka miro dhaliyaan, ay u dhabar adeegayeen oo maalin walbaba ay shirar aad u badan runtii oon kala joogsi lahayn ay nagala soo qaybgelayeen. Marka waxaan rabaa haddii la haymo inaan odayaasha u yeero hoggaan bay samaysteen dhexdooda ah. Hoggaankaasi waxay u doorteen wax kale ma ahane waxa weeye in haddii amiir uu u noqdo ayaguna maadaama anagu aan dooranay annagii bay loo yihiin amiiriin. sidaa markaa silsilada noocaasa inay hawsha ku socoto intaanan u yeerin marka guddigaasi hoggaankiisa waxaan rabaa inaan laba codsi aan halkan ka soo jeediyo. labada codsi mid wuxuu ku socdaa dhammaan dadka jaaliyadahan ku abtirsada beelahan dirka la yiraahdo dibadaha degan ama diasporaha markii magaca qalaad loo yaqaano. runtii waxaan rabaa inaan kula dardaarmo anoo ku hadlaya magaca guddigaas in aad maanta wixii ka dambaysa meel kastoo aad joogtaan aad noqotaan dad isku xiran, iska warhaya, wax wada qabsada, iskaashi dhinac walba aan samayn kara iyadoon markaasi aysan diiniyan ahayn mid xaaraana. aan arkana inayba tahayba masaalixada dhabta ah oo ummadan Soomaalida markii laga hadlayo u ah xal in qolo walbaaba si isu soo habayso oo markaasi iyagoo habaysan ay beelihii kale iyo dadkii kalena ay wax la qaybsadaan horumarka hadday noqon lahayd xaggiisii, hadday noqon lahayd isnabadgelinta iyo magacii laftigiisa ilaalintiisii. marka jaaliyaduhu waa badan yihiin. Finland mid baa degan waa ta halka fadhida maanta, kuwa kale hala gaarsiiyo insha Allah dibadaha magaalooyinka kale ee degan Yurub ilaa America wayna sameeyeen runtii oo wasad la socotaan. hore ayaa loo sameeyay wadamo kale oo annaga naga horeeyay ayaa jira oo sameystay golayaashan oo kale, annagu uguma horeyno. tan kalena waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto fursadan aan uga dirayo siyaasiyiinta ka soo jeeda reerkan oo aan ognahay in ay qaarna dawladda madax bannaan yihiin, qaarna ay yihiin dawladda aan weli madax bannaanidoodii si international u helin, kuwana ay yihiin kuwo ka tirsan dawlado ka jira geeskan Afrika oo ayagu ah hoggaan. haddii ay noqon lahayd Kenya waxaa ku jira dad fara badan oo qaar mas-uuliyiin yihiin, qaar xildhibaano yihiin. dadkaasi waxaan ka codsanaynaa marka haddii ay noqon lahayd dhinacan dawladdan Kenya, hadday noqon lahayd Ethiopia, hadday noqon lahayd jamhuuriyadda Djibouti iyo Somaliland intuba in ay siyaasiyiintoodu ay ayagoo markaasi u arkaya inay tahay mid waajiba ay runtii eegaan sidii ay dadkan Soomaalida ah gaar ahaan dadkan degan koonfurta Soomaaliya dirka ay u noqon lahaayeen dad ayaguna ka qayb qaata siyaasadii meelihii ay joogeen, noqdana kuwa marka ayagu
uu jiro qof walaalo oo backup oo kale u noqda taa marka waxa weeye waa codsi halkan aan uga soo jeedinayo inay noqdaan kuwa saagooda kale oo saan ula socono beelaha kale siyaasiyiintooda waddan walba ay ka tirsan yihiin si toosa ayaan uga daawanaa telefishinada idaacadaha aan qarsoodi lahayn inay iban uba tagaan arkay magaalooyinka ay tagaan inta aan ognahay intaasoo parliamentary Kenyana ayaa u tagayay maamulada hadda laga sameeyay Jubaland oo kala hadaan tusaale usoo qaato kilanku waa garanaysaan oo dadka Soomaalida oo degan reerkan ayaa ugu badan saas ay tahay martibay ka yihiin siyaasadda markii la yiraahdo wax kalena ma ahan waxa weeye siyaasiyiintii dawladaha ku jiray oo ayagu powerka lahaa ayuunba lobin hadday noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd taageero kaleba la garab taagnaa mar walbaba halka ay ka qorsan tahay baasha anigu dhinacaas aan u arkaa marka labada arrimood oo xagna ku saabsan annaga jaaliyad ahaan midna ku saabsan siyaasiyiintii ayaan rabaa in aan fursaddan uga faa'iidaysto kaamirada horteedana aan ka sheego hadalkii anuun markaa ka bixin ayaan waxaan rabaa in aan halkan kusoo dhaweeyo microfonka haddii ilaahay idmo adeer faarax oo isagu runtii aan rabo inaan mahad ballaaran isagii odayaashii kale oo guddigiisa ahaaba uga soo jeediyey mar labaad halkan sida hagar la-aanta ah oo ay noola garab taagnaayeen maalin iyo habeen iyo saacad walba oo taleefano iyo wax walbaba kaga qaylinayna dhagaha oo hawsha noola soo qabteen maantana aan rabno idinkoo markhaati ka ah inaan halkan aan hawshii si official ah ugu wareejino ayagoo markaa u ah reerka halkan deegaan ahaan degan Finland dirka la yiraahdo in ay markaa u tala bixiyaan oo ay dhaqankii iyo arrimihii kale ee xagga wax wada qabsiga iskaashiga iyo dee la qaybsashadii beelaha kale nabadii iyo horumarkii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaaliyeed ba ay wakiil nooga noqdaan insha Allah marka adeer insha Allah Faarax kusoo dhawo microfonka kelmadii halkan kaaga habooneedna noo sheeg hadii lahayd beesha direed ee halkan isugu timi maamulkeeda guud iyo keeda hoosaba ee ku shirtay halkan mid hore iyo mid dambaba naguna maxsuuntay naguna soo dhaweysay tawa salaamaya salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta ka bacdi halkan waxaynu ka qabanay shirar aad u badan baynu soo qabanay oo ka hadlaya beesha direed oo aynu u adeegsanaynay wanaaga iyo wax wada qabashadeeda Finland ta imanka uu ka hadlay Siciid Jaamac annagu guddi dhaqan baanu ahay haddii alla ka dhigo mar haddii lagu yidhahdo guddi ilaahay ka dhigo marka lagu leeyahay guddi dhaqan baa tahay ama oday baa tahay ninka odayga la yidhaahdo ama sultaan la yiraahdo ugaas la yiraahdo malaaq la yiraahdo nin walba wax kasta ha u yaqaano wuxuu leeyahay waajib ah waa hogaamiyana wuxuu hogaamiyaa waxa la wixii diintu nacabtayna uu nacab yahay reebtayna waa reebayaa wixii diintu wanaagiisa iyo dhaqankana uu xoojinayaa waxaanu xoojinaynaa wixii ilaahay ogol yahay baanu xoojinaynaa waxaanu xoojinaynaa wixii dhaqanka islaamka ah waxaanu xoojinaynaa waxa beesha direed xaq u leedahay intaasaan haddaan odayaashii nahay beesha direed ee nalooga doortay Finland sidaasaan u soo dhaweynaynaa beelaha iyaga kale ee islaamka ama deriska ama aan wadaagta leenahayna sidaasaan u soo dhaweynaynaa ula hadlaynaa oo wada shaqaynaa horena aanu la soo shaqayn jiray intii aanu joognay ee aanaan hoggaanka naloo bilaamin hoggaankii kale ee Soomaaliyeed ee muslimka ay kiis muslimkaaba waan hoggaamin jiray waan hoggaamin doonaa insha Allah halkan waxaan uga hadlayaa haddaynu nahay shirkan ay nimanka qabanay ee anaga nalagu soo doortay in badan baa nimanka shirkan soo wadnay fadhiya ragga halkan fadhiya rag badanna waa fadhiyay rag badan waa naga maqnaa rag badan nimanka way naga maqan yahay iyo dumarba inta waxaan isla soo gorfeynay sidaynu wanaageena u samayn lahayn bulshadeena u dhiqi lahayn inagu isugu xidhnaan lahayn intaasaanu aad iyo aad u soo gorfeynay uga soo wada hadalay hoggaanka ugu dooranay laba guddi baanu dooranay labada guddina guddi dhaqan tahay
guddina ay tahay guddidii teknikada reerkan isku siyaasadda isugu hayn lahayd waa isku afgaranay bulshadiinan maanta timi iyo inta naga maqana waxaanu doonaynaa inaanu helno taageeradiinii iyo isku xidhkiinii garbahaanu ku duulayna inaad noqotaan insha allah haddii ilaahay ka dhigo markaynu inagoo midha dhalaynana ayu gudubto haddii ilaahay ka dhigaayo wixii kale ee ay naga maqan iyo degmooyinkeeda kalaba haddaanu markaa odayaashaa nahay waxaanu soo dhawaynaynaa wixii wanaaga ee bulshadu leedahay dhaqankeenna isku xidhkeenna maaliyadeenna reeraheenna ubadkeenna qurbahanaynu joogno iyo foolxumadiisa sidaynu uga dabaalan lahayn intaasaanu doonaynaa inaanu ka talino ka wada duullo innaga iyo intaynan la doortay iyo intii kale ma aha intan la doortay inay ku xidhnaato waa obi ninkii wax taraya waa soo dhawaynaynaa tanuu siciid jaamac ka hadlay yidhi jaaliyadaha yarahan balaqsaday yarkaa daatay waxaanu sheegaynaa insha allah qoladii u dhisantayna waxaanu leenahay haday dhisnaato qoladii kale wax wanaagsan inoo qabanaysana waxaanu leenahay soo dhawaada ha laydinla qabto wixii wax toosinaya wixii wax dhisaya iyo midnimadan aad iyo aad baynu usoo dhawaynaynaa waa la shaqaynaynaa jaaliyadii hagaagsanba waa lala shaqaynayaa waayo waxtar bay leedahay wax umayn mayso wixii aan wax wanaajinayana inteenan iyo inta maqaniba waxaanu jecelahay inay soo dhawayso insha allah hoggaanka naloo doortayna waa sidaa 12 xubnood baanu ahayn haddii ilaahay ka dhigaayo sidaasaanu doonaynaa inaad idinkuna haddii alla ka dhigayo nagula shaqaysaan nagu soo dhawaysaan wixii wax garada ee wax nagu soo kordhin doonana kama xidhna waan kusoo kordhinayna insha allah waan kusoo darayna waa u furan tahay ragga aanu isleenahay waxbay idiin tarayaan ama dumarka aanu isleenahay imanka halkan waa wada rag meedhan maantana waxaanu ku ballansanay ragga dumarku inay yimaadaan ilaa 30 ilaa 40 saddex hablood baa ma yimi looma soo sheegin waa shaqada ragga waan garanayaa iyagu xaggooda ma aha waayo haddii ama xil la sheego ama iskaashi la sheegto waxay jecel raggu inay sir kuusaan xagga hablaha yar xidhiidhiyaan waxaan leeyahay hablaha ma xidhiidhiyayno haddii ilaahay ka dhigaayo meeshan insha allah waxay naga yaabaa inay inoo dhasho oo siyaasadeenu dhasho oo wax ballaaran aynu ka helno oo jaaliyado badan ka helno oo ururo badan ka helno oo haddii ilaahay ka dhigaayo waxa aanu hogaaminaynaa noqdaan wax idin wax tara waxaanu leenahay hoggaankiina hablaha idinkuna usoo diyaar garooba haddii alla ka dhigaayo kusoo dhawaada siyaasadda iyo lacagta nagu qabsada haddii ilaahay ka dhigaayo saasna waa taxaglaha xaggooda insha allah marka inta waxaan kaga baxayaa oo odayaasha kale uga baxayaa haddii ilaahay ka dhigaayo tan uu leeyahay haddii alla ka dhigaayo waxaynu halkan isugu nimi siciid jaamac sheegay in dil iyo dhimasho iyo wax dhaceen odayaasha dhaqanka ahee la dilay ee ina soo gaadhay dhibtoodu waxaanu leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waa ka tacsiidaynaynaa ninkastaynu dee inagu intaynu shirayna aada u daanay haddana dee nin dhintay waa ducadiisu mar walba waa obina waa u furanta waa ducaynayna ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo kuwii ay ka dhinteen samariya imaan allaha ka siiyo iyo bulshadeenanba iyagu maanta way dhinteen oo gurigoodii bay tageen waxay caawa dhiba haysaa kii dilay ee dhiigu dusha ka saaran yahay baa dambi haystaa ragguna weligii waa dhiman jiray kuwii dhintay bay la mid yihiin haddii alla ka dhigaayo waxaynu leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo idinkuna waxaan la jecelahay mar haddaynu gudi dhaqannahay wanaagga iyo xidhiidhka wanaagsan iyo tolliimada ayaynu mar walba u hiilinaynaa wadaynaa la midoobaynaa wixii wanaagga wada wixii xumaanta wadana aynu ka reebaynaa intaasaan kaga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marti sharafta isugu timi aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaanu nahay kulli guddi cusub insha allah shaqaduna dib bay nooga bilaaban doontaa insha allah wixii imika ka dambeeyay wada shaqayn dambe oo wanaagsan yeelan doonaa kolley dee nin weyn hadduu soo taaga meel weyn wuxuu yidhahdaa runtii waxani waa wax la sugayey xoogaga direed in la mideeyo waa wax maaragtay aan u aragnay inay waajib tahay inaynu ka shaqeyno walaalihiina koonfurta Soomaaliyeed
ee ku dhiban inaynu midayno oo inaga oo aan cadaawad iyo xumaan samaynaynin aynu maaragtay xaqooda u doonno waxa weeyaan waxa waajiba inaynu mandaqada Somaliland la yiraahdo raadino itiraafkeeda dib u dhiskeeda ka qayb qaadano maaragtay la shaqeyno dawladda ka jirta oo waxa aynu xaq u leenahay dawladda la yiraahdo Djibouti walaalaheena inaynu adkayno madaxweynaheeda sida wanaagsan u daadihinaya taageerno waa wax macquul oo wax inoo yaalo waajib weeyaan dadka kale ee deegaanka kilka shanaad ee Itoobiya diga maadaama inagu majority nahay inaynu taa xoogeeda ka shaqeyno oo maaragtay cidunba wax bilowda inagu daydaan insha Allah oo waxaynu rajeynayno meel walba wax ka bilaabmaan jaaliyada Finland xogaga beesha direed waxaanu leenahay maadaama guddiga loo doortay waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa islaamaya waa islaamaya intiina meeshan joogto waxaan taageersanayaa aniga ruux ahaanteyda Buulo Cali Cabdi la yiraahdaa shirkan aan soo nimid meeshan iyo howlahan aan wadna hadda si fiican u taageersanahay waliba guddigan hadda inkastoo waa dhow yahay karamada dhawo jannaay afarteedaan magacawnay haddana bisha afraad ku jirnaa waxyaalo badan waa soo qabsoomeen waa noo qabsoomeen waxyaalo badanna waa weli waayo waa dhimay marka waxaan dadka ku guwaabinhayaa in ay hawsha sii laabaan dad fara badan ayaan ku joognaa meeshan Finland inta aan joogno adduunkan hadee waa dee lama soo koobi karo waxa meesha aan kusoo koobi karo maaha waxaan madahay baano waxaan madahay TV ku fiirinahay waaskii fireedo oo lagu doortay Ingiriiska wuxuu tagay xamar uu tagay markuu tagay Nairobi in meesha jirto aan kusoo wareegahay wali wareeg ku jiraa marka anagana meesha nada inaan ka geejino oo hawshan aan sii laabno rag iyo dumarba waa loo baahan siyaasiyiin aan leenahay aqoonyahan aan leenahay odayaal baan leenahay guddigan hadda waa guddigii meesha aad wixii aad soo goystaan idin saxiix lahaa oo okay waa idin ilaa moge dadkii wax qaban lahaa oo dadkaan hogaamin lahaa waa kuwa meeshaan wada tuulayeen inta maqan waay marka waxaan kusoo gabagabeynayaa shirkan iyo kuwo kaloo fara badan intaa inuu ku ekaano la sii wado meesha direedna meel ay joogto waana waa taageersanahay hawshan inay noo socoto Abdinuur Axmed Maxamuud baa la yidhaahaa laakiin waxaan ku magac dheerahay Cabdidheer oo Cabdinuur yaqaan baaba iska yar waxaan salaamayaa horta dhammaantood wada salaamaya salaanta musiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa horta intaan iyo intana taageersanba waa u mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa annagu waxaan nahay guddi waxaan dooranay oday xoogaa anugu markii hore waaba xama jeclaa in maaragtaa odaga aan ugu dambaysiino hadalkee laakiin ninka xiriyaha baa noogu hormariyay horta annagu 11 iyagaas waxaan dooranay ninkaas faaraxo hadda aad aragteen maadaama annagu aan dooranay waxaan rabi lahayn inaad nagu ayidaan oo nala doorataan oo noo asxisaan maadaama dadweynihii aad tihiin waa codsi taas intaasaan kaga baxayaa waxaan kaloo idin sheegayaa xoogaa meesha aan isugu nimid kolleyba waa un qurbana qolo walbaaba meesha ay ku nooshahay markii ay iyadu wax ka noqoto isku duubanto ayay meel kale u gudbi kartaa waxyaalo badan baa jiro hadda muddo badan hadda Siciid iyo wuxuu kusoo celinaya koonfurtaasaasi xoogaa ishaana naqbatay haddaan reer koonfurka nahay koonfurtaan ka duway annaka kale u duway haddii la isku duuban yahay dee kolleyba wuxunbaa hagaagi kara laakiin haddii la kala tafaraarusan yahay waxba lama qaban karo haddaan annagu intee aanaba meel kale iyo koonfur iyo Soomaaliya iyo aanaan gaarinba inteenaan war aan badbaadsanno oo isbadbaadina mawjad baan joognaa ubad baan noo jooga wadan qurbaahan joognaa wadamo xun oo dee dhaqankeeda aan isku dhaqan ahayn baan joognaa war annagu aan isku duubanno aan badbaadsana awlaadeena haddaan niraano xataa waa wax weyn bal Soomaaliya iyo koonfurteeda iyo siyaasadda iyo xaggaba iska dhig intaas haddaan wax qabsano annagu isku duuban
aan dadkeenna iyo carruurteenna iyo dumarkeenna iyo waayeelkeenna badbaadsanno oo isku duubanno aada wax u weyn weeye. hadda markii loo noqdo dhankii Soomaaliya ama intiraafkii Somaliland ama ma garanaysaa dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan, waxaan aaminsanahay haddii aan halkan ka bilowno oo yeelano guddi warnood maaragtaa internetyada iyo meediyada iyo wax isku duuban oo dabadaha iyo jaaliyadaha kale iyo wadamada kale aan isku xiranno oo xataa shacab ahaan aan u istaagno, siyaasadda iga dhiga xagga shacab ahaan aan u istaagno oo intaas oo kun oo degan Finland iyo intaas oo kun oo degan Sweden iyo intaas oo kun oo wadamada kala degan ay adduunka ka codsadaan maaragtaa muctarif waxa qabaa wax weyn xataa inay bedeli karto, shacab ahaan ku bedeli karto. waa mar midda xigta yaana maaragtaa hadalkeena idinkaga baahana ma rabee dadku waa badan yahay waqtiguna waa ciriiriye. waxaan rabaa inaad odagaasna nala ansixisaan, arrintaasna aan ka wada shaqayno, isku duubnidaan aan ka wada shaqayno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan salaamaya salaanta islaamka ayaan ku salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. imayow maanta waa sukan keenteen, magac baa muujiseen, meesha waa sukan keenteen, waan mahadsantihiin. ayaan baan soo wadnay. horta afkiina marka hore laga maqlo waan idin ayidsanahay. waad mahadsantihiin. horta waan shaqeyn markay taa tahay waxaan isku ognahay nimayow waxbaa inoo yaalla. aniga magacaygu waxa weeyaan Siciid Ibraahim, guddidan ka mid ahay. marka hadda kulli waxaan odhan lahaa raggii ugu horreeyay baa yidhi oo anigu maba wax badan odhan maayo. marka waxaan hadalkayga kusoo gaabinayaa desaay shaqo wanaagsan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa maxamed cismaan buux, nin reer Jabuuti yahay, nin diran yahay oo ciise kun Jabuuti carta markii aan aasaasinay dowladda Soomaaliya la dhisay inay dib u soo dhiseen ayagu laftirkooda dalka ee dastuurka ku qoran Soomaaliya dil baa jira, dil wixii lagu qaatay habaatee hadda ujeedadaas ugu imaan waxay weeyaan inaan dulmiga tiimno, inaan corporation sameyno, inaan si daacadnimo ku shaqeyno, inaan maad aragtay dadaan cadaawo u qaadin. waayo muhiimadu waxa weeyaan cadaawada ugu daran. qofka bini aadanka haddii uu ka arko calool xun kulama shaqeynayo. dad walaalaan nahay waxaana taageersan yahay dowladda Somaliland in loo qoonsado. dowladdii labaad ee beesha diray geeska Afrikana power ku yaala. Soomaalida hadal intaasaan kaga baxaya. ujeedadaynu dhaxweyn waa wada shaqeyn, isku taag, dadkana isku keeno insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaa runtii aan mahad soo jeedinaya walaalaha halkan kasoo qayb galay maana naga ajiibay maaragtay fadhigan inay noo yimaadaan maaragtay iyagoo howlahooda idanooda kale kasoo tegay liajli inay la qaybsadaan walaalahooda kale maaragtay isku dayay inay abuuraan ama unkumaan jaalida direed ee degan Finland. marka walaalayaal waxaan leeyahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa ku mahadsantiin xuduurkaas aad soo xaadirteen. ama intaa kadib walaalayaal jalsadan u nimid waxa waa mid macnaha maaragtay ilaahay u raalli ka yahay. waa ilaahay maaragta qaala allahu tacaala fi muxkami tanziilih yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. aayaddaas walaalayaal kolley dad culimadii waa wada joogaan kulligood iyo dadkii maaragtay raasiqiinta ahaa, laakiin waxaan rabaa in nafteeda itiinaba inaan ku baraarujiyo inaan u nimid halkan inay tahay litacaarufu. tacaarufku waxaa ka rib markaan isbaranno oo walaalahan maanaha Finland degan jaalida direed Finland degan markay isbartaan ay is ogaadaan kulli isbartaan kadib waxaa ka ratibmaya maaragtay inay markaas macnaha marka inay is xiriiriyaan is ogaadaan xaaladooda wax wada qabsadaan ay markaas dantooda
guud ay wada leeyihiin ay wada istaagaan marka walaalayaal marka waxay macnaha maaragtay hawshan oo mid inoo wada taalla guddigan la magacaabay macnaha waa guddi dabcan wuxuu noqon doonaa wareeg ah marba hawshu waa mid kulligeen inoo wada taalla qof walba ee maaragtay halkan maaragtay jooga ee maaragtay ama naga maqan oo ah magaca beesha beelbeelta direed oo macnaha waa wax hawl wada noo wada taalla marka walaalayaal waxaan markaa idin leeyahay macnaha waxaan isugu nimid waa inaan macnaha iswada barannaa isbarashada kadibna ay ka ratibantaa macnaha wixii kas ku dhigay ee ahaa horumarinta iyo danta ummaddan eed leedahay aan wada leenahay inaan wax ka qabsano waa ogtihiin waddankii waxaa ka jira dhibaatooyin ka jira meelo badan taana wax kale kuma imaan waxay ku timid macnaha maaragtay markii aan dhexdeena annaga macnaha tafaraaruq iyo macnaha isbarasho la-aan is-ogaan la-aan inaan is-aqoonin ayaa waxaa ka ratibay maaragtay in markaas maaragtay ay dhibaatooyin badan dadkeenii gudaha waddanka aad ogtihiin dhibaatooyin ka dhacay meelaha weliba ugu daran hadda ay tahay meelaha dhulka dadka ay degaan magacaan direed wata ay degaan dhibka ugu weyn meelaha uu ka jiro waa meelahaas marka walaalayaal macnaha dabcan annagoon macnaha cidina dulminayn in macnaha maaragtay dhibkan na haysta ee macnaha nagu haysta waddanka guud dadkeena haysta inaan u wada qunno sidii macnaha maaragtay musallax ah wanaagsan ee maaragtay ilaahay macnaha uu ogol yahay insaaniyaduna ay aqbalayso inaan u wajahno maaragtay aan wixii xal aan ka geysan karno ka xallin karno ka xallino midda kale ii xigta waxay tahay walaalayaal macnaha maaragtay hawshan ma inaan loo arkin inay dad qaas ama dad un macnaha walaalaha hawsha waday kari inay iyagu waajib ku tahay waa inaan qof walba iyo fardi walba iyo meel walba macnaha qof walba iyo fardi walba iyo guri walba inay tahay mid ay noqotaa mid kasoo ukunta mid kasoo bilaabata ee kasoo socota ilaa aan isugu nimaadno dalad weyn jaaliyad weyn ee xoog leh ee maaragtay aragti leh ee istaraatiijiyad leh ee qabsan karta danaha ee wada leedahay marka walaalayaal kulley wixii war ahaa macnaha ama wanaagsanaa waa laiga hormaray intaas waa intii maaragtay aan nafteyda intiina ku baraarujin lahaa wasalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan dhammaan marka hore salaamayaa dhammaan dadweynaha isku yimid halkan mar gudoomiye jaaliyadda Soomaaliya ahaan waxaan kaloo soo dhaweynaynaa beesha direed sida weyn uga soo qayb qaatay waxaan leenahay sida uu Siciid iyo dadkii horeba sheegeen haddii alla idmo bisha May waxaan qaban doonaa xafladii la isugu imanayay waxaan ku ogeysiin doonaa ama ku soo bandhigi doonaa website-da iyo telefoonadaba haddii alla idmo marka waxaan idin leenahay ku soo dhawaada kana soo qayb gala haddii alla idmo dhammaan gaarsiin inteeni kale inaga maqan haddii alla idmo waxa kaloo aynu halkan lagu qaban doonaa waxyaabihii kala yimaada marka warbixinta waxaan samayn doonaa insha Allah ogeysiisyada aynu kusoo gaarsiino aynu kusoo baahino warbaahiyada website-da haddii alla idmo aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa dadkii waqtiga badan siiyay macnii juhdiga badan geliyay munaasabadan aadka u qurux badan leh waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هذا البلان إن شاء الله تعالى ما ورد دونه أدرك وضياشا يمرت الشرف تاع ماشي سكوتي بالشدة قيبان باش أدير كقوم قيبة ذيك الدوان وعكرات كوضياشا مروين كدليل علماء مركو هوري وسلامتي وعندكم سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي كل وجددي النحورك وجددي الأسبوع كان يعني مانتا شركة كشركة أو سعيد جامع وضياشة كله كسر الشقية إنه ده هوشان أيها رنتي نود مي أو بحنتي ووافية إنسي رنتي شرف ما كان نوتاي أنا كمان تايجو رئيسي لكن حنتا هوشان إنه صوته إنه ده يسوسوتي رنتي وانكور هاي ujeedaduna waxa weeye sida la sheegay dadka islaamku mar hadday islaam yihiin inay midaysnaadaan marka hore waa waajib weyn markay tacaaruf hoose sii yihiin inay iyaguna midaysnaadaan iyaduna waa mid meesha ku jirta wanaagsan ujeedadu waxa weeye dadka ku abtirsanaya beeshan iyada inay isku xibnaadaan in wixii wanaaga tacaawuna ay ka wada shaqeeyaan wixii xumaanana ay ka dheeraadaan wixii dulmiyana ama si hoose iyo si sarba si shariicada islaamku ay tiri inay u yiraahdaan oo dulmigu dhicid oo kale ma jirto ama nin xaqdara lagu dilo ha noqoto ama wixii simid laga qaaday ha noqoto ama midan xuquuqdiisa loo ogolay ha noqoto dulmigu badan yahay noocyo badan yahay marka in la yiraahdo laga hadlana la isku ceebaalaysan maayo xumaana maaha anigu marka fikirkan iyada insha Allah taala waan soo dhaweynayaa odayaasha oo faarax chairmanka uu yahay oday dhaqameedka uu yahayna waynu ducaynayna sida nagu hoggaan baan leenahay
وين لا شقيننا إن شاء الله تعالى هذا أنا وحلا لو واحد يقبع ديار بنا فكر نقالة إن شاء الله تعالى وحي اللي يقبع هذا فكرة حاول مسكحي يوحي كلمات إن شاء الله تعالى ديار بنا كوهاي إن السكوح إن هذا يكنا هنا كذا بحالي وصنعوا ما تقارنين تبغى مركب طلع صاروا هذا الكودي حوي نين هديها الله وكشين الله بركيه أيام هي مركب الله شقينا أساسا نكون هنا هذا اللي تكون بدل ما يهوش ونسود ويننا إن نقرب استغنى هراك الله أي لو بعيي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتي دمان dadka ka soo qayb galay odayaasha culimada dhalinyarada dhammaan anigoo ku hadlaya magaca haweenka beelaha direed wadanka Finland marka hore aad ayaan ku taageersanahay una soo dhaweynaynaa horumarka iyo waxtarka ay beeshu soo macnaha guulaha tan labaad hadalkayga waxaan ku daray anoo aad uga xun ugana tacsiyeynaya odayaashii lagu laayay magaalada buur agteeda ah oo u tacsiyeynaya 8 oday ee laga laayay beesha reeriya ay ka geeriyoodeen waxaan leeyahay ilaahay jannada firdawsaha macnaha ayagana ha geeyo eheladiina waxaan leeyahay samir iyo iimaan annagoo aad uga xun ugana tiiraayaysan dadkii dilayna waxaan leenahay ilaahay ha soo qabto hadalkaygana waxaan kusoo gabagabeynayaa halganka ka socda gobolka Shabeellaha Hoose ee sanadka iyo barka jirsaday ee beesha direed inuusan kusoo gabagaboobi doonin halkaas odayaal haddii la laayana waa shahiid ragga dhintana waa shahiid halkankana meesha kuma hari doono insha Allah waxaan u rajaynaynaa guul iyo inay gabagabo arrinta guul kusoo hooyato insha Allah ee beesha direedna isku duubni iyo guul baan u rajaynayaa assalaamu calaykum isugu yimi dhalinyaro odayaal haween intaba leh isu xilqaamay in ay xafladan iyo guddigan halkan ay ku sameeyaan xafladda ma haddii ay tahay mid dhaqameed ah oo aan ahayn xaflad madal siyaasadeed waxaa kelmadda iga aadan waxaan ma inay tahay in aan raho hambalyo haddii aan Somaliland markasta waxay diyaar u tahay in walaalaheeda koonfureed ay gacan qabato haddii ay tahay xagga nabadgelyada horumarka bulshada iyo dhinac kasta waxay kaloo Somaliland aanay cambaaraynaysaa marba in tacadiyo loo geysto dad ka ku nool koonfurta Soomaaliya marka waxaan leenahay qolada halkan odayaashan lagu caleema saaray waan idin hambalyeynaya waxaan idin rajeynayaa guul insha Allah assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله waxa aan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharaftan aan ka mid ka ahay ee ka soo qayb gashay ajiibtay dacwadan walaalahooda direed ee koonfureed ay ugu baaqeen aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waxa kaloo aan ku hambalyeynaya taageerayaana odayaasha loo doortay inay guddi u noqdaan beelaha direed meel walo ay joogaan ama Djibouti ha joogaan oo hadda ganaadaan ama Somaliland hadda ganaadaan ama koonfurta Soomaaliya hadda ganaadaan ama Ethiopia hadda ganaadaan ama Kenya aad baan idin hambalyeynaya waraan idin kula shaqeynaa insha Allah ma aba oran jirtay carbeeda dadka doonaya inay xorriyad ku meel gaar ah helaan ama ammaanku meel gaar ah inay helaan uma qalmaan inay xorriyad iyo ammaan toona helaan qofku waa inuu macnaheedu waxa weeye qofku waa inuu doonaa ammaan weligiiba ilaahay siiyey oo uu xaq u leeyahay inuu mar walba doono ka waxaan leeyahay hadday koonfur noqoto
dadka halkan ay isugu yeedhay waxa weeyaan ummad waa shucuub sida aayadda qur-aanka ee ay labada wadaad ee qur-aanka loogu furiyay kii loogu khatimay ay sheegeen shucuubtuna waxay ka kooban tahay qabayl kale kaana waan ku faanayaa anigoo isaaq sheeganaya inaan ka mudno shacbiga direed inaan ka mudno aad baan ugu faanaya maanta ma taagna sheekada maanta ma taagna in yidhaahdo waa waxa weeye waa dirow keliya waxay taagan tahay waxa weeye shacbiga oo noqda shacbiga Jabuuti shacbiga Ethiopia shacbiga Somaliland shacbiga Kenya nin walibana meel buu ka soo galaa dir anigoo magacaygu yahay Yaasin Cabdi Mire waxaan taageersanahay beelweyntan dir madashan quruxda badan leh isku yimi odayaasha cuqaasha waxgaradka anigoo ku hadlaya ururka dhalinyarada Somaliland ee Finland aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa beelweyntaas direed ee lagu midoobay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi waan la shaqeynaa assalaamu calaykum anoo Cabdiwaab Xasan Maxamed waxaan taageersanahay shirkan ka dhacay hadda Helsinki maalin sabti ah tahay in beesha direed ay isku raacday fadhigan maaragtay beesha direed ee degta shanta magaalo gobol shanta wadan ee Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh magacaygu yahay Cabdirasaaq Maxamed Cismaan kuna magac dheer Bijood waxaan leeyahay hawshan maanta aad qaban qaabiseen waa hawl ay dadku u baahnayeen beesha dir ay u baahnayd 100 sano ka hor beesha dir waa la kala diray waxaan ilaahay ka baryayaa inay maanta noqoto maalintii khayrka beesha dir ay dib isugu soo noqon lahaayeen kana wada tashan lahaayeen siyaasadda shanta dal ay degan yihiin Ethiopia Kenya Soomaaliya Somaliland iyo Djibouti ba anigoo khaasatan beesha dir u arka inay tahay beesha ugu quwadda weyn leh ugu tirada badan leh bariga Afrika marka la eego jinsiyadda Soomaalida la yiraahdo waa beel islaama waa beel dhalasho balaaran leh waa beel ilaahay aanu awoodeeda tusin waxaan leeyahay on ku gubaabinayaa mar labaad iyo mar saddexaad beesha dir in uu ilaahay ka dhigo uu tuso quwadda ay ku leeyihiin bariga Afrika oo billahi tawfiiq waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay anigoo magacaygu Faysal Saleebaan Xaaji Bakar kuna nool magaalada Helsinki caasimadda Finland maanta waxaan halkan ka dhacay shir aad iyo aad u qiimo badan oo isugu timi beesha direed ku nool waddankan Finland taas oo ay kaga tashanaysay aayaheeda haddii ay tahay jamhuuriyadda Somaliland iyo haddii ay tahay dirta ku nool Soomaaliya iyo haddii ay tahay dirta ku nool Djibouti dhammaan waa dad walaalaa oo isku dan ah marka waxay ka tashanayeen danahooda waxa ay ka arrinsanayeen sidii ay isugu xidhmi lahaayeen ee ay maxay ahayd iyaguna wuxuu wada qabsan lahaayeen dadka kale ee walaalahooda ee ay wada degan yihiin ilaahay isku buqcadda ka dhigayna ay u ahaan lahaayeen dad iskaashada oo nabad ku wada nool waxa kale oo ay halkan aan taasi uga dirayaa odayaashii lagu laayay koonfurta Soomaaliya taas oo ay dad maxay ahayd si xaq darraa lagu laayay waxaan leeyahay ilaahay iyaga ha u naxariisto gacantii ka xaq darrayd ee dishayna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la saamixin oo dirtu meel ay joogtaba ama Somaliland had deganaato ama kilinka shanaad had deganaato ama Djibouti had deganaato ama Soomaaliya had deganaato ama had deganaato maxay ahayd NFD iyo maxay ahayd Kenya meel kastoo ay joogto inay heegan u noqoto danteeda isugu timaado arrimaheeda ay maxay ahayd ururiso waxaan kale oo iyana aad iyo aad maxay ahayd aan uga codsanayaa odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka beesha iyo siyaasiyiintu inay ka midoobaan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaasaan kusoo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku hadlaya magaca Gadabuursin ahna beesha direed waxaan aad ugu hambaliyeynayaa isku imaatinka maanta ay isku timid beesha ilaahay wada dhaliyay ee kala maqnayd waxaan beelaha iyaga walaalaha nahay ee koonfurta direed u sheegaynaa waqooyiga Soomaaliya inuu dadkiinii joogo dhulkiinii ay tahay garlaan aad u iman kartaan waxna uga qabsan kartaan degina kartaan walaalihiina ay idinka soo horeeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو فارح محمد يوسف
shirkan lagu qabtay maanta Helsinki caasimadda Finland aad iyo aad baan u taageersanahay dirka koonfureed ee maanta halkan ku qabsaday shirka ee kaga hadlayay danahooda gaarkaana waxaan leenahay haddaanu lahay dirka Somaliland ama haddii ilaahay badan kaliya waanu soo dhawaynaynaa aad iyo aad baanu u taageersanahay hiil iyo hoobana waanu la garab joognaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin assalaamu calaykum dhammaan halkan waxaan ka wada salaamayaa beelaha direed maanta halkan Finland iskugu yimid anigoo ka soo jeeda beesha direed marka halkan waxaan uga mahad celinayaa in la isku wada duubnaado oo la is wada taageero السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته نروح على مصطفى سعيد waxaan ka soo qayb galay shirki ka dhacay wadanka Finland Helsinki waliba maxay hay'adee direed marka waa arrinta si fiican bay u dhacday shirku waan taageersay wax loo baahan weeyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogto shirkan maanta wuxuu ahaa shir aad u qiimo badan una qaayo badan ay isugu imaadeen bulshooyinka direed shanta geesood ee qaaradda adduunka meel walba ay ka joogto waana shir macnaha looga hadlayo midnimada beesha direed waxaan aad ugu faraxsanahay fikirkaas ah midnimada sababtoo ah markaan taariikhda Soomaaliya ka hadalno waxaan ka hadalnaa gumaysigiina kala qaybiyay laakiin wili iskuma soo qaadno annaga gumaysigana kala qaybi haddii aan dirnahay noo kala dhigdhigay qodob ama laf ama jilib haddana dhahay waxba iskuma tihiin macnaha taas dhaliisheeda horta macnaha waxaa ka mid ah waan u jeedinayaa siyaasiyiinteena meel walba joogaan hadday noqdaan kuwa Puntland joogo hadday noqdaan kuwa koonfurta joogo hadday noqdaan kuwa Somaliland joogo hadday noqdaan kuwa Djibouti joogo hadday noqdaan kuwa Kenya joogo iyo Ethiopia iyo meelaha kale ay joogaan macnaha war qofkaaga macnaha dadkaaga dad ku tahay walaal shirka waxaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa wuxuuna ahaa shir sidii loogu talagalay u hirgalay waana shir aan aad u soo dhaweynayo arrimaha danteena haddaan laysla wada eegin oo aan uliya diir la noqon waa ambanaynaaye arrimaha danteena haddaan laysla wada eegin oo aan uliya diir la noqon waa ambanaynaaye aniga atoore ah oo armi badan haysta aniga amiroo iskale ayda iyo duurka